xubnihii ka socday beesha caalamka ee u yimi Somaliland dhexdhexaadinta xisbiyada mucaaridka iyo xukuumadda Somaliland ayaa kulamo goosgoos la yeeshay xisbiyada mucaaridka ah ee u ciidiya wadani iyo xisbiga mucaafidka ah ee kulmiye kulamadaasi markii ay soo dhamaadeen waxa warfidiyeenka la hadlay mas'uuliyiinta xisbiyada mucaaridka ah ee wadani iyo u ciid waxaanay halkaasi ka sheegeen inay afgarad buuxa gaadheen wafdigaasi ka socday beesha caalamka aan la kulanay safiiro tira badan oo ka socda dawladaha Yurub gaargaarkooda iyo ururka midowga Yurubba iyo ururka IGAD intaaba way isugu jireen iyo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa runtii waa dawladihii iyo hay'adihii caalamiga ahaa ee inagala shaqaynayay geedi socodka dimuqraadiyadda markasta oo arrimaheenu ay waxoogay ku yar yimaadaan isqabadeena inta badan way inoo soo gurmadaan oo way inoo iman jireen socdaalkooda nimanka wuxuu la xidhiidhay arrimahan doorashada ee magaranaysa runtii dib u dhacay iyo khilaafiyadan soo noqnoqday ama komishanka la xidhiidha guddiga komishanka doorashooyinka ama muddo kordhintii golaha guurtidu sameeyey magaranaysa labada sanadood ahayd la xidhiidho oo runtii aanay jeclaysanin arrimahaasaan runtii aanu isla eegaynay labadan xisbi markaa waxay u caddeeyeen go'aankii ay shalayba labada xisbi sida wada jirka ay u sheegeen ee ahaa inay qaateen go'aankii ay soo jeediyeen guddigii dhexdhexaadinta ahaa maanta waxaanu halkan kula kulannay doonariskii Somaliland ka taageeri jiray systemka dimuqraadiyadda ayna barbar taagnaa ama saaxiibadii Somaliland oo inoo yimi waqtiga ku culus oo ah waqtiyada fasaxa galaan si ay Somaliland uga caawiyaan dimuqraadiyadda ee holbayno dhinac taagnaayeen waana u mahadnaqaynaa waxaan leenahay thank you very much waddankayga Somaliland u barbar taagantiin labada xisbi waanu la kulannay waxaanu kala qaadanay information marka arrintuna waxay ku eg tahay proposalkii ay soo jeediyeen guddidii dhexdhexaadintu waanu mahadnaqayno waanu haddaan nahay xisbiyada mucaaridka aqbalay dhankooda iyaguna xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye oo warfidiyeenka la hadlay markii uu soo dhamaaday shirarkii ay la yeesheen wafdiga ka socda beesha caalamka ayaa sheegay inay iyaguna afgarad buuxa la gaadheen wafdigaasi xisbiga kulmiye sidii aanu caddaynay shalayto arrimahan doorashooyinka ee hawshoodu muddada socotay waxaanu caddaynay mowqifkii xisbiga kulmiye waxaa kaloo la caddeeyay mowqifkii dowladda xukuumadda Somaliland oo ah odayadii dadaalka ku jiray oo aad iyo aad u mahadsan inaanu aqbalay qaraaradii ay dadaalkooda ka soo jeediyeen ugu dambeyntii safiirka midowga Yurub Master Nicholas oo isaguna warfidiyeenka la hadlay ayaa uga mahad celiyay xisbiyada mucaaridka ah iyo xisbiga kulmiye is-afgaradkaasi ay wada gaadheen. Finally, we would really like to, on behalf of the international community and the partners of Somaliland, we would really like to encourage the political parties to sit together and set up a calendar for implementing the proposal of the mediation committee. Ahmed Nur Ciise, Television Bulsho, Hargeysa.